shubankiisa iska ilaali iyo xaarkiisa iyo kugu sayrin si BB lagu isticmaalo ayaan la dacaydee tuug weedha sambalon shayxilka ka tuurteen xuseen calalkuusay u dhiibeen si maqaar saar ah fahda ku xigeen u noqday wax yar oo xuseen hayay xuseen iska maskiin u ahaa walaalkayo waa saran aniga dhowr jeer nin iska maskiin ah fahda hawsha wato magac u yaalo ka dhigta bis 4.5 ka lagu saxay kadibna markii wixii dhag ay dhahan fahda meesha la wareegay ayaan hala shaka ka shakana fahdu agaasimo guudaan habeen u tagay madaxtooyada October 14 marka xamar dadka ku dhamaadeen waa la fadhiyaa marka waa u galay horta waa isharfay oo soo dhaweeyay markaan la fariistay ayaa telefoon u soo dhacay tusbax dheer oo wataa marka fahad inaan ku maqasho maaqaan marka qaar tusbax u qaataa kursi weyn saas u jiidan oo ku fariisana oo bararay saas u wardina marka halkaasaan fadhiyaa aniga nin xildhibaan ula socday intuu fadhiyaa ninka naga tagay anaga isku harnay waxa soo wacay nin aan u malaynay inuu yahay taliyaha sirdoonka qadar ama kan Soomaaliya qaabilsan Arabiga kula hadlayaa qaaran maqlayaa wuxuu leeyahay ra'iiska ma ka dhamaysa arrinta waxaan u fahmay ra'iiska isla markii waa fahmay ila marka gaalada waxay dhahan to put the dots information haysta ma ho waxba aruursatay research ah waxaaga isku toltolo to put the dots punctuation samayso joogsi hakad adiga isku toltolo waxaaga to put the dots wixii gaan dot karana marka wixii waa ka warqaba waqti solution oo bixi rabo wixii waa ka warqaba ra'iiska arrinta ma ka dhamaysa waxa waaye inaad taliye adiga noqoto ma ka dhamaysay farmaajo wuxuu leeyahay maya ra'iiska arrinta waa ku jiraa waa wadnaa uu Arabi ku leeyahay hawshana waa ii socotaa waana xogaa waa jarayna oo yani telefoon muhiim inuu soo dhacay anigana iga saka iyo xogaa ima dhihi karo waa karaameena bahdilkaas inaan ka yeelina ogiya midaa noo yid marka gacanyaro u ahaa asaga oo la yidhaha Cabdirasaaq Caato oo la og sardoonadan soo waa la og ayaa soo galay oo nin dowladnimada dadka ku abuse ah farmaajo la qaraaba ah dadka aad u dhibaatay haddana banaanka lagu soo tuuray maalow salaamadan aan ku arkay salaanta kama qaadan saasaan u fiiriyay والله بالله ساسان ku irday saasaan waa xigmara waa iqosla waxaan ka wada psychological warfare waa may psychological warfare waa Soomaaliya dalabta ka gashay laga ma afin doono waana ku ognahay anaga wuxuu u yahay secretary waa xogeen oo kala la baxsasay xagaas waa agmara rag kale oo dhan waa salaama kuwi la socdo dhan salaantan ka qaaday asaga ma qaaday aniga kuwa dunuubta galo ayaan lama tuso waliba nin abuse of power sameeyo ayaan nabad lay tusaba abuse of power nin sameeyna ayaan la aragto waa nin aan isku kalsooneen oo daciif ah oo inferiority complex ah hadaa rabto qof inaad dulmiso dhaqaalahaada oo jab kugu jiro lacagtaada iyo aqoontaada ku dulmino qofka isaga dhici laakiin awood dawli ah bari laga qaadayo maanta aa qabat nin ku dilay hadaa aragto Soomaali kan ugu liita waa uguna daciifsan wuxuu soo qalminaysaa aqoonteeda lahayn waa soo galay waa maqlay codkii uu maqlay qol ugu dhagan oo ku jira oo faad u fadhiya waa soo galay xagu istaag wajiga wuxuu ga tusaa meesha lagaaga ma baahna amal anigu tusaa ka soo ka amal anigana faad duu ikicin man kan u kaca saasaan u fiiriyay waa ka sii jeestay shawaan ka yiri faadkaas ka fiirsana bas faadkii ay yiri naga bax meeshaas ka fiirsanay markaan dhameystaa ir muxuu ahaa nin kula hadlay wuxuu yiri wasiirka arrimaha dibadda qadar u ahaa war kala ma dhihin marka bas anigu waa ii xaqiiqoobeen marka shib afkayga qabsaday hadda waqti ma غير وزير كان laga yaabo ma baha wasiir baba la soo hadlayo ma wasiir ma la hadlayo agaasimo madaxtooye masuudiyo faadmada waa ogtahay waa inta meel soo marnay soo lama soo qortana soo shaqeynay soo shaqeynay ayaa waxa jecelahay waa jecelahay marka aad isku daydid inay aad taqisid baabuurka kaliya ugu qorxay markuu leeyahay waa laanta sano kor waa ayaa waxa laga joogaa 2000 ina gaari sano waay 2000 ina gaari ay wada xamaraad 2001 oo sheegay waxa waa laatan sano amal laga joogaa gaari ugu qurxan magaalada wata wiir wata wiir ingiriis ana ugu wada wiir weligay shidaal ku shabadin ayaa la gobonimada ugu leeyahay faadada waxba ugu xishmay wax kamid ah noloshayda markaas noloshayda dadka dhan waxay dhaamu ku dilaa ama qatar ku galiya waxa kaliya oo ninkaas yani iga leexdo waxay tahay naftidaas qatar ma galiyo ibna ma soo awiis wax dhibaato u geey maxay tahay gobonimada ugu sharafta qaar marka noloshayda baabuurka shidaal ku shabadin ana baabuurkii ku shabanay gobonimada uu leeyahay asagana shaqo u qabsanayo oo ilaa meel igay ingiriis inta walaalkay u marsay inta ku leexi ku shubma dhihin waa 1998 2001 iyaan ka shaqeynaa 98 asbarnaan asaga laakiin waxaan ku ogahay nin saaxiib lana ma aha nin walaalna ma aha dabacdiis taliska markuu joogana wuxuu u maamulay oo uu bedelay Xuseen Calalkuus qaabka dafla u dhaqmay u maamulay waxaan marka la yaab hal arin oo aan faad ka maleysanayn ayaan la anigu adoo ku aqaan Soomaa aqoon dheer aan ku leeyahay Soomaa
بري تليها النساء دان نقط وأن كوجو أرك كور واحد أنه ليش كوجو أقولون حريص درا فهد وحن كو أغاني وهاجس أنا أغاني نن صلاة عن صلاة قدرين نن أهل الدين نن وداد وحن أركي ساس ما نتوه رأي أفيري نن وجهي عن كدري ما نحرص العن يمجح جهنمه وجهي سنة إيجا بغض فهد نكلي هذا فهد ديك بدر إلا داي وحلا جنا حيجرين وبدأ عن لي أبوه ما حاسس كده waxaa ka dhigay siyaasaddan Soomaaliya oo galay oo uu qaabka qaladka u fahmay horta fiiri haddaad siyaasadda faham qaldan ka haysato si qaldana wax u maamulee wuxuu siyaasadda u fahmay in la kala adkaado wax aqoon leh oo u sharaxo war Soomaaliya laguma kala adkaado waana la kala adkaan waayey kun oo sano Soomaaliya xeerka isku maamuusho wuxuu ahaa laba xeer consensus and compromise anthropologically nin Soomaaliya ka adkaan karta ma jiro wax kasta u sheego qabiil u sheego xoog u sheego daanyeer camala Soomaaliya iska daba la cashoomay انت تفوش انت لقى دافولا هل كان قنيت نعس لقى قنينا لقى جويس لقى قوينا واحد صادق جون استوى حد تر ولا واحد صادق جون استوى ضربته قال عبد الرحمن شكو كغلي dadka uu kabahooda ku aasay oo meydkooda maanta la la'yahay uusan wali sheegin oo laga doonayo inuu sheego meesha ku aasay maalinta maxkamad cadaalad dhalato MB-nimada inta laga qaado xeerlaaliyaha guud oo ka qaado maxkamad la soo saaro uu sheegi doonaa meesha lagu aasay yaani wax ka haraya male Soomaali kala ma harto إنت كان مركب واحد فهم سيوة فهد هو يرهده ما حد كنت حارسنا ملأ ولا ها وكوس ولا فهد واحد فهم سيور فهدو كما أتكاني سيدتك ولا كان أتكانا دوا وحنيها اللي قلتوا مويدتك وكا أتكانا واي صببت فهد يا عبد الرحمن دير النساء عريان كأقول لك عبد الله نصري تاسوا يا حد كنت المنطق ولا لمن ملا صاحبت لمن مله أيان له أداد أديك سلسة سكرتين يا أداد صاحب أهنجرتين نكاس ما أنت وحو كوهاي مله وحو أمس dhaqan danaystanimo oo ku dhaqma oo ah tu arif ma la maraha xukunka ciriiri ma iga jira inaan sii joogo ha ninka markaas la dhisaya walaal ila saaxiibna ila hadda adiga soo horjeedo si kasta ila soo kortay wax kasta ila adig ku taala isma naqan ani adiga yaani dhaqan danaystanimo ah oo aan ku fasiri karno kii Jean François Bayard ee ahaa politics of the belly siyaasad calooleed oo laaluush iyo lacag leen dhiiba ku shaqeynaa